Farasaabka gobolka Gabiley Yuusuf Ibrahim Geedi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dadka guryaha dawladda ku jira ee reer Gabiley isagoo ugu baaqay in sida ugu dhaqsaha badan uga baxaan oo ay dawladda ku soo wareejiyaan guryaha hantida dawladda waxaan hubaa in decreto as ayaa soo saaray marka oo si markii barigood minaan joogayna saa aan soo saaray oo dadka ay uga baxeen oo dawladdu ay wada gashay Gabiley waxaan u imi guriyihii dawladda oo dad shicib iskaga jiraan oo saddex heer ku jiraan oo cidina ay lahada qaar la dhistay oo jeexooda dhistay qaar la iska hantiyeystay intaas oo la tirkoobkooda ku jira qaar warshado laga dhigay intaas oo la tirkoobkooda ku jira waxaan doonayaa marka soo tirkoobo inta hantidii dawladda ay dadka shicib ku jiraan inaan decreto aan ka soo saaro aan leeyahay muddada intaa la kaga baxa Yuusuf Ibrahim Geedi Farasaabka Gabiley waxa kale oo ka hadlay wasaaradaha dhismayaasha ka sameystay gobolka Gabiley iyo kuwa aan wali laba haynba marka waxaan ku amarsiiyay wasaaradii aan xafiis yeelanay Hargeysa iskaga noqoto nin kaliya oo mushaar qaata halkan loo joogay ala kulli xaal nasi wanaag waxaan sameeyay markiiba wasaaradda maaliyaddu waxay sameysay xafiiskii laga xukumay waxa ku xigtay wasaaradda waxbarashada waxa kaloo aan ayada laba wiil ka hor aan dhagax dhignay wasaaradda dhirta iyo daaqa oo iyaduna dhismaheedii bilaabay waxa kaloo soo socota oo ayaguna meelihii aan istaagayna laga sugayaa oo aan diyaar garaynay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda cadaaladda sidoo kalena Farasaabka gobolka Gabiley waxa uu sheegay inuu soo afjaray khilaafaad ka taagnaa qaar ka mid ah degmooyinka gobolka hoos yimaada gabagabadiina waxa uu dadka reer Gabiley u soo jeediyay inay dhisaan gobolkooda oo aanay Hargeysa u guurin amleena dadweynaha reer Gabiley ee gobolka Gabiley ee gudiga dibadba ee ku yaacay u guuray Hargeysa waxaan leenahay si jaamacadda Timcadala ay jaamacadda la birtato inamadii aragteen iyo hadii aragteen Hargeysa la qabateen ku soo celiya oo gobolkeena dhista oo aamina Mukhtaar Nuux Ibrahim Hon Cable TV Gabiley.